السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام دمان أصحابتك وحرن يوتيوب كعالمي أوفيشال. وقال كان مانتا وحن كجوابيا سؤال igu soo noqnoqday. Su-aashaas waxaan kaga dhex jawaabi doonaa muuqaalka gudihiisa. Su-aashaas waxay tahay sideeban luqadda Ingiriishta isku bari karaa. Haddaba intaynan ka jawaabin sida luqadda Ingiriishta isu bari karto adiga oon college u gelin fee bixin waxa weeye aan systemka dheer marin sida ugu badod adigoo gurigaaga jooga kombiyuutarkaaga internetkaaga qolkaaga intaa keliya haysta aad isu bari lahayd sida ugu wanaagsanna ugu hadli lahayd aad muuqaalkan ku ogaan doontaa. Haddaba si aynu taa u samayno keenu kutoo qaadan doonaa muuqaalkeena gudihiisa 16 youtubers kuwaas oo aad isaga dhigi karto luqadda Ingiriishta. Muuqaalkan waxaan soo xulay ardayow 16 youtubers kuwaasoo isugu jira ajaanib iyo Soomaali. 5 youtubers waa Soomaali waxayna ku baxayaan luqadeena hooyo taasi oo si faahfaahsan isugu dhigi karayso. Haddii luqadaadu halkaas soo dhaaftana waxaan kuu hayaa oo iyagana daawanaysaa 9 youtubers kuwaasi oo ah ajaanib English to English lagu dhigayo oo aad u qadiyan Englishtoodu. Intaa waxaa ku sii dari doona 9ka 2 youtuber oo ay shaqadoodu tahay podcast ama Ingiriishta kaliya marka doonayso inaad listening ama dhageysi samayso. Haddaba isla socod wanaagsan hadda toos waxaan idin tusi doonaa 16ka youtubers 16kaaba aan doonayaa inaad gaagi qalinkaaga soo qaadato oo aad ka bilaabato heerka aad ugu markaad isqiimayso ay kula tahay inaad ka bilaaban karto. Aynu markaa bilowno. Asxaabta waxaynu toos u geli doonaa magacyada youtuberska aan soo xulay kuwaasi oo aan u arkayo youtuberska ugu wanaagsan ee luqad qof doonaya inuu isu dhigayo ka bilaabi karo. YouTube-ka koowaad aynu soo qabanaynay waa inagii hore u sheegnay kuwa ajaaniba iyo kuwa Soomaaliyeed isugu daraynaa hore u soo sheegnay. YouTube-ka koowaad aynu soo qabanayay waxa weeye shakhsi magaciisa la yiraahdo Master Ahmed. Sidoo kale waxaynu isla arki doonaa oo aynu eegaynaa YouTube walbayba qaybta ka xoogan yahay ama se qaybta xoogga saarayo si ardaygii dhiganayay uu YouTube doonto. YouTube-kan wuxuu kaga duwan yahay youtuberska kale ee soo gudbiya luqadda Ingiriishta marka koowaad isteelka uu isticmaalaa ee luqadda u dhigay waa isteelkii samuuradda iyo qalinka ee aynu ku qaadan jirnay koolajyadeena kaasi oo ah kii ardayga bilaabaya dhigashada luqadda Ingiriishta saameyn weyn ku yeelanayay. Aynu mid ka soo qaban muuqaaladiisa markaasi aynu aragno sidoo wax u sharaxayo. Halkaa waxa kaga muuqda samuuraddii iyo qalinkii iyo macallinkii waxa weeye waa qaabka ugu effectivesan ee uu qof u dhigan karayo. YouTube-kan waxaad ugu ardayo u soo doonatay haddaad doonayso inaad iska dhisto qaybta grammarka halkan kaalay markaa ayaan ku leeyahay Master Ahmed Jaamac aad ayuu mahadsan yahay. Shakhsigan soo qaban doonay waa shakhsi ajaanib ah markan waxaana la yiraahdaa English with Greg. Shakhsigan aynu soo qabanay waa shakhsi run ahaantii aan luqadda dhigashadeeda ka soo bilaabay waqti aad fog aan naftayda ku xidhay si aan luqadayda sare ugu qaado. Sidaas si la mid ah waxaan doonayaa asxaabta YouTube-kan ku xidhan inay iyaguna self study sameeyaan oo ay youtuberskan oo dhan soo daawadaan. Waayahay youtuberkan wuxuu kaga duwan yahay isagu youtuberadii kale. Isagu wuxuu kaga duwan yahay youtuberkanu marka koowaad aad wuxuu ugu dadaalaa xoogga saaray waxa loo yaqaano conclusionka ama soo khulaasaynta soo koobidda. Halkaa waxaad ka arkaysaa 12kii tennis ee koolajyada laynoogu dhigi jiray sanadka dhan ama 12 bilood inuu ku soo koobay in 25 minutes 25 minute keliya. YouTuberkan sidoo kale wuxuu xoogga saaraa waxyaabaha loo yaqaan 2-4 kuwaasi oo inta badan ardayda khalkhal ku keenay markay hadlayaan oo qaybta 8 parts of speech ka tirsan.
youtuberkan sidoo kale meesha uu xooga saaray waa mistakeska. Ardayow haddii aad doonayso luqadaada inay wax kastaaba sax ku noqdaan youtuberkan ka maarmi maysid. Intaa waxaa kuu sii dheer afsuuqa waxa loo yaqaan slangiskan uu ku hayaa youtuberkani. Intaas waxay noqonaysaa youtuberkan hal muuqaal baan kasoo qaban doonaa muuqaaladiisa. muuqaal waxaan soo qabadaynaa dhammaystiran. intaa waxay noogu eg Greek eegistiisii aynu markaa iska masaxno. Shakhsigan soo qaban doonaa iminkana waa shakhsi Soomaaliya ayaan soo qaban doonaa. Waa macallin in badan luqadda dhigisteeda ku soo jiray social mediahana maxay caan ka ah waxaana loo yaqaan Ustaad Mullah. Ustaad Mullah ayaa la yidhaahdaa. Waa macallin aad iyo aad u qaali ah run ahaantii arday badanuna ay ka ablaxday. Macallinkan wuxuu kaga duwan yahay youtuberska kale. Waxaad ugu tegi kartaa, maxaad ka heli kartaa ilahaas ayaynu isdul taaganaayey. Toos ayaynu sii socon doonaa inagoo sii wadaynaa safarkeena youtuberska aynu ku eegaynay ee luqadda qofku markuu doonayo inuu soo dhigo. Youtuberkani waxaad ka helaysaa marka koowaad qaybta grammarka. Xooga u saaray isaguna grammarka. Sidoo kale wuxuu isticmaalay steelkii samuuradda iyo qalinka ee ma aha faceless. Intaa waxaa kuu dheer new concept book loo yaqaan new concept casharadiisoo diyaarsan oo duuban ayaan bartan ugu tegaynaa macallinkan. intaas ayaan waxaan kaga koobsanaynaa macallin Mullah. Aad ayaan u salaaminaynaa Ustaad Mullah. waayahay shakhsigan soo qabadaynay waa shakhsi ajaanib iminkana. shakhsigan muxuu yahay English ayaa la yidhaahdaa. shakhsigan waa gabadh dumara weeye. gabadhan Englishta iyaduna qaybtii xoogga saarto waxay qabato inahaasoo dhan waynu dul istaagi doonaa inagoo muuqaaladeeda mid ka midana furi doona. waayahay aynu haddaba meesha ugu muhiimsano playlistiga aad dul istaagno waa halka aynu ku kala ogaadayno waxay soo geliso. run ahaantii macalimadan waxaan iyana ka soo bilaabay dhigashada luqadda waqti aad u fog. qofkii doonaya inuu bilaabo dhigashada luqadda ingiliishta xoog waxaan kula talinayaa inuu ajaanibka wax badan ka daawado inta uu daawanayo kuwa aan ajaanib ahayn. gabadhan waxyaabahay soo geliso waxaa ka mid ah kuwiiska qayb yar oo ah maxay su'aalo oo xagga dambe lagaa weydiinayo. waxaa meesha ku jira conditionalskii grammarkii oo dhan. qaybta ay xooga saartaa sidoo kale oo ayana meesha ku jirta waa islaan waa afsuuqigii waa intii aynu soo arkaynay. laakiin maxaa kala duwan ardayow? qaab fahanka iyo qaabka wax uga fahmaysa macallimiinta ayaa kala duwan. aynu eegno muuqaaladeeda mid ka mida markaa kaabaynu soo qabanno marka. Hey, this is Emma. Now, although this step is also the trickiest one, it's the best way. intaa waxaynu kaga koobsanaynaa English ayaynu kaga koobsanaynaa. haddana waxaynu u gudageli doonaa shakhsi isaguna Soomaali ah kaasi oo ah English with Nima. shakhsigana waa qof dumar ah oo Soomaali ah. isla mar ahaanta shakhsigan wuxuu soo kordhiyey waxaan odhan karayo aad ayuu ugu yaraa in la arko inta badan markay. shakhsigan waxaad igu tegaysaa ardayow grammar cashar dhigis samuurad la tegayo waxaa ugu tegi maysid. laakiin shay intaaba ka duwan oo ah turjumidda aflaanta iyo waraysiyada laga qabto sidoo kale showyada tiifiyada ayaad igu tegaysaa. qofkii doonaya inuu keliya dhegaysto luqadda halkan baan kula talin lahaa. aan markaa kasii socon inagoo hore u degdegayna. shakhsigan soo qaban doonaa waa maxay? waa Woodward English aynu soo qabanayna iminkana. waqtiga
oo iska yar dartii muuqaal labaad ayaan soo samayn doonaa waayo muuqaalkan uu dheeraanaya YouTube-kan isagana waxaad ku tegaysaa waa faceless marka koobaad casharadu soo geliyay ma soo muuqda isagu laakiin grammar fara badan iyo xogo fara badan sidoo kale pronunciation ayaa ku jira hal muuqaal ayaan soo qaban doonaa marka muuqaaladiisa pronunciation of ed ayuu dhigayaa dhawaaqa loogu dhawaaqo ed wassalaamu calaykum intaa waxaa ku eega qaybtii koobaad ee aan ku soo qaadanayay youtuberska soomaaliya jaanib isugu jira ee qofkii doonaya luqadda inuu isu dhigayay uu si fudud uga dhigan karayo wassalaamu calaykum